دكتور عبد السودي إبراهيم agaasimaha guud ee cusbitaalka weyn ee magaalada burco oo maanta wareysi gaar ah xafiiskiisa ku siinayay telefishinka caalamiga ah ayaa ugu horeyntii ka warbixiyay muddadii uu joogay isbedelka ku yimid cusbitaalka weyn ee magaalada burco iyo waxyaabo qabsoomay muddadaasi. Hadaan idinka warramo xaalka cusbitaalku maanta marayo iyo muddadii aan joognay waxyaabihii noo qabsoomay. Imika waxaan joognay muddo 4 bilood iyo badh ah ama ku dhawaad 5 bilood ah. runtii muddada waxyaabahan dardargelinay waxa kamid ah markii aanu nimiba inaanu shaqada dardargelino meesha ka jirtay taasoo markii hore habacsanaan badan ka muuqatay cabasho badan oo xagga bulshada ka muuqatay in shaqaalahan meesha jooga aanu la xisaabtano oo qof waliba uu shaqeeyo xilligii lagu talagalay. runtii waxa kale aanu sameynaan cusbitaalka burco hore uga jiri jireen in 24 saacadood bal laga helo dhakhtar. markii hore waxa jiri jirtay in dhaqaatiirtu galka uu shaqeeyaan oo galka dambe habeenkii loo yeeri jiray haday wax dhacaan laakiin inay joogaan oo ay shaqeeyaan 24 saacadood ba joogaan ayaan ku soo kordhinay. taasina waxay ku abuurtay bulshada reer burco ama reer togdheer iyo diilo badan oo inay cusbitaalkii ku soo hirtaan oo ay imaadaan oo xilli walbana ay ka helaan shaqaalihii oo heegana. taasina waxay keentay in bulshadii u soo caafimaad doonan jirtay cusbitaalkan oo aad iyo aad u korodho oo hadiyo habeen ba ay imaadaan. runtii waxyaabaha kale noo soo kordhay muddada waxa kamid ah inuu bilicda cusbitaalka wax ka qabanay intii karaankayaga haday dhis noqoto iyo haday qurxin noqoto aan wax badan ka qabanay muddada aan joognay. runtii waxa kale oo muddada aan wax ka qabanay inaan ku soo kordhino adeegii hore oo shaybaarka oo kale oo aan meesha ka jiri jirin sida qalab cusub aan ku soo kordhinay qaybtan shaybaarka. waxa kale oo ay dawladdu noo keentay ama wasaaradda caafimaadka qalab fara badan aan hore meesha oo la jirin ayay nagu soo kordhiyaan iyagana aad iyo aad uga mahadnaqayno. wax kale aanu soo kordhinay muddada in qaybtii kaliyaha lagu safeynaya iyadana ku soo kordha cusbitaalkan magaalada burco aan hore uga jiri jirin hargeysa meel ka baxsan Soomaaliland oo iyaduna iminka shaqeynaysa oo dadkii si wacan lagu shaqeynayo. runtii waxa soo dhan waxaanu dadaalkaas oo kale aanu sameynaa waxa kamid ah shaqaalaha oo gunnada cusbitaalkan burco markii hore muddo badan aan gunna qaadan jirin inaanu iminka ku siino muddo 27 cisho ama 27 cisho iyadoo bishii dhammaan. taasina waxay keentay in shaqaalihiina iyaguna si niyad leh u shaqeeyaan oo si wanaagsan u shaqeeyaan shaqadooda ka soo baxay mar haddii gunnadoodii si wacan loo siinayo iyo mushaarkoodiiba. waxa kale oo aanu ku soo koreyneen iminka la bilaabayaa oo ay dawladdu xukuumaddan hogaamiyo madaxweyne Muuse Bixi Cabdi iminka ay bilaabaynaa dhismo cusub oo qolalkan baymanska waarka loo yaqaan oo kalikalida oo sanadkan miisaaniyadda ugu jiray ayaanu iminka bishan bilaabaynaa haddii la yiraahdo kaasna aan uga mahadnaqayno mas'uuliyiinta ugu sareeya wasaaradda caafimaadka sida wasiirka ku xigeenka iyo agaasimaha guud sida hagarlaanta muddada aanu xilka haynay iyaguna nolol shaqeynaa waan uga mahadnaqaynaa. caqabada kale iminka haysata waxa weeye waa dhiska oo nugu yar oo cusbitaalkan muddo hore la furay iminka cusbitaalku sidoo dhan yahay uu buuxa qofku markuu yar la naalaan iminka si dhaqsa ayaan u saarnaa. marka cusbitaalkii dadkii lagu talagalay dad ka badan baa ku nool waayo 45 baa cusbitaalkan la dhisay. marka tan ugu daran maanta haysataa waxa weeye waa cusbitaalkii oo dadkii ay ka bateen yaalay ama dadkii soo adeeg doonayay taana insha Allah markuu dhiska cusub iyo waxa dhisno oo ka baxayna. agaasime Cabdi Suudo hadalkiisa sii wata waxa uu ka dhawaajiyay inay ka baxday nadaafad darradii ka jirtay cusbitaalka iyo adeeg xumo ay ka caban jireen dadka ku dhaqan magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer. waxa kale oo iyaduna meesha ka baxday cabashadii ay bulshadan ka qabtay cusbitaalkan ee adeeg xumada ee nadaafad xumada ahayd nadaafad ka caban jireen wixii oo dhanba muddada aan joognay waan ka saaray waxaan ku sii dadaalaynaa muddada aan joogno inaan haddii la yiraahdo dadaalkan halka ka sii wadno oo aanu maalinba talaabo qaadno waayo waxaan markii aan nimiba waxaanu sameynay qorshaanu sameynay ilaahay intii waan uga asturay inaan filayno kalena oo noo qabsoontay muddada 4 bilood ee barkaan joognay insha Allah inta naga dhimanna sanadkan qorshayaanu sameynay insha Allah waanu hirgelinaynaa. marka maanta cusbitaalka burco wuxuu marayaa meeshii ugu wanaagsaneyd. marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu u mahadnaqaynaa xukuumadda sida wanaagsan ay nolol shaqeysay muddada imkaanime ee wax kasta aan u baahano ay nagu dhagan nagu leeyeen ee wax kasta aanu baahidayada ay markasta nolol daboolana waan uga mahadnaqaynaa. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, Sab TV, Burco.